السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وكتاب كني العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا وإياه في جناته. waxaynu shalay bilownay masalada ku saabsan muctaqadka ahlu sunnah rahimahumullah fi ashaabi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam. masalada noocaas oo ka mid ah muctaqadka ahlu sunnah wal jamaaca waxaa inta badan lagaga hadlaa dhowr masalo. masalada koowaad waa xaqa ay nagu leeyihiin, xuquuquhum calayna, saxaabada xuquuqda ay nagu leeyihiin. xuquuqda ay nagu leeyihiin oo ah inaynu jeclaanno, inaynu qadarkooda garanno, in aynu ku dayanno iyo waxyaabaha la midka ah. masalada kale waa fadluhum, bayaanu fadlihim wa makaanatihim fi lislaam, fadliga ay leeyihiin iyo makaanada islaamka ku leeyihiin. qodobka saddexaad waa masalada tafaadul fii maa baynahum, kala fadli badnaanshaha iyagu kala fadli badan yihiin. masalada saddexaad ama afraad waa alimsaaku camaa shajara baynahum, in laga gaabsado wixii iyaga dhexdooda dhacay oo aan la dhex gelin. masalada kale waa addifaacu canhum, in la difaaco oo laga difaaco dadka aflagaadaynaya, hadday nawaasib noqdaan iyo hadday rawaafid noqdaan, akhzaahum allah. intaasoo masalo shiikhu intaba uu yaro taataabtay. shalay inaga akhrino wuxuu ku bilaabay usuusha muctaqadka ahlu sunna waxaa ka mid ah salaamatu quluubihim wa alsinatihim liasxaabi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam, in carabadeennu iyo quluubteennu ay u fayoobaadaan asxaabta nebiga sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam, sababtoo ah waa afdalu lumam. fadliga ay leeyihiin kitaabka rabbi iyo sunnada nebiga ayaa sheegtay calayhi salaatu wasalaam, si waadixaanay u sheegtay, hadday noqoto si guud saxaabada iyo hadday noqoto aaxaadooda iyo qaababka ay kala yihiin. wuxuu soo qaatay marka mu'miniintu inay yihiin qaar carabkooda iyo qalbigooduba nabadgalay oo ka nabadgalay saxaabada rasuulka sala allahu calayh wasalam, sidaa laba tilmaamay waladiina jaa-uu min bacdihim. aayaddani laba aayadood baa ka horeeyey oo alla uu ku ammaanay lilfuqaraa'i almuhaajiriin iyo waladiina tabawa'u daar. ansaar iyo muhaajiriin labadaba alla uu ku ammaanay, saxaabaduna labadaasi ka koobnaayeen. kadib baa la yidhi waladiina jaa-uu min bacdihim, iyaga dabadood kuwii yimid yaquuluuna rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan walaa tajcal fii quluubina ghilan liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uufu raxiim. marka qolada aan ansaar iyo muhaajiriin ahayn waxaa lagu ammaanay oo inay odhanayaan ilaahayow noo dembi dhaaf annaga iyo walaaladayo oo nooga horreeyay iimaanka, quluubtayadana hilli iyo xiqdi iyo buqdi ha u yeelin kuwii alla rumeeyey. wa taacatu rasuul salaamatu quluubihim bay ku cadfanta. usuushooda waxaa ka mid a ahlu sunna salaamatu quluubihim, quluubtoodu inay nabadgaleen, iyo wa taacatu rasuuli, rasuulka in la adeeco, fii qowlihi lagu adeeco laa tasubuu asxaabii, war asxaabtayda ha dhaleecaynina. xadiis abi saciid alkhudri nabigu sala allahu calayhi wacala alihi wasalam 3 jeer buu ku celiyey laa tasubuu asxaabii, laa tasubuu asxaabii, laa tasubuu asxaabii. fawalladii nafsii biyadih low anfaqa axadukum midla uxudin dahaba maa balaga mudda axadihim walaa nasiifah. waxaan ku dhaartay allah naftaydu gacantiisa ay ku jirtee mid idinkaydi ka mida hadduu bixiyo uxud in la eg oo sadaqa ah buurta uxud ee weyn ee madiina ku taala
midkood sacabka uu bixiyo mudku waa rubuc saac labada gacmood aad isku dhajisay inta ay qaado mid kamida intaas oo uu bixiyo ama inta barkeed nasiif lugha fi النصف ما gaari karayo taas marka waa fadli weyn waliba xadiiskani daakhilu saxaabo ku saabsana oo Khalid ibn Walid iyo Abdurrahman ibn Auf markii hadal dhex maray baa nabigu sallallahu alayhi wasallam hadalka Khalid ka cadhooday dadna hadalkan uu yiri hadii hadaba Khalid marka waa suxba khaasa ayaa taa loola jeedaa hadii sida Khalid lagu yiri faman ba'dahum ba awla wa ashad wuxuu marka tilmaamay ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم مسألة كون مركو كب الله بي أحيث سلامة قلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نبت قلنا إيانا ولمكانتهم لا تصبوا الإمام النووي رحمه الله حديث كان مكو صرحه في صحيح مسلم كان وحول هذا ويؤخذ من هذا الحديث أن المفضول لا ينبغي الازدراء في الفاضل كان قفل لبدايه كفل لبدايه wax ka sheegay daray ku ta marka waxay aqbalayaan wax kasto oo ku yimid kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca fadaa'ishooda fadaa'isha saxaabada kutub badan baa laga alifay musannafaadkan jawaami'da sida jaami' al-bukhari jaami' as-sahih lil-imam al-bukhari iyo waxa weeyaan sahih muslim iyo kutubta la midka ay أبواب يكتب وقاريلان فضائل الصحابة مصنفات خاصة ويتشران وعلماء وألفين أوسع كتاب له أروري فضائل الصحابة وكتاب كأوقري رحمه الله شيخنا سعود ابن عيد الجربوع رحمه الله رسالة دكتوراه واسعة وأنا مطبوع أفضل أوسع كتاب ألف فيه فضائل الصحابة marka saxaabada fadaa'ishoodu marna waa si guud oo dhamaantood inay ka fadli badan yihiin man jaa ba'dahum taas waa mas'alo nabiga sallallahu alayhi wasallam ki saacad la taagnaa ee saxaabada ay reer miyi ah ee aqoon kale shariicada baran ayaa wuxuu ka fadli badan yahay kullu man jaa ba'dahum kainan man kan ولهذا ayaa qaarkood u yimaadeen salafkii qaar ka mid ah markaas waxay weydiiyeen Umar ibn Abdul Aziz oo aan saxaabi ahayn iyo Muawiya ibn Abi Sufyan oo saxaabiya ka fadli badan markaasuu ku yiri qubaarka sanka ka galay Muawiya isagoo jihaadkii kula jira nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa ka fadli badan Umar ibn Abdul Aziz oo غير Umar ibn Abdul Aziz sababta waxay gaareen martabad aan cidina gaari karin iyaga dabadood cid gaari karta aanay jirin waa martabatu suhbah hadaba kii ugu yara haduu inta yahay afaadil الصحابه bal kawar ibn abd al-barr rahimahullah kitabkiisa al-isti'ab iyo al-hafiz khatib al-baghdadi iyo hafiz iyo ibn hajar fi al-isabah في الإصابة مقدمة لوذا كتاب الإصابة هي استيعابكم لبضبا وحي كسابسين صحابة مقدمة أعطوا قيمة بضن والشيخ هذا الكيس أنا وحكمي أي كل احتران أي سوقاتان وحكمي لها مركا حضرك ابن حجر حدان كتابك يسو أنا كسو أروري نهين آيات حديث طون أو فضل قودة المامية حالة كسو قنايين قفك او فير صدا وحوغانيا انهم افضل الخلق بعد الانبياء والرسل حالده كسغناي maxay ahayd nusradii ay nabiga sallallahu alayhi wasallam u gargaari ka hormariyeen nusradaas wax walba ka hormariyeen nafahoodii u dhinteen ubadkoodii qaarkood u laayeen ay u gaajoodeen ay alghali wan nafis u bixiyeen si diintan ay ugu nusreeyaan حالدا ay ku sugnaayeen qofka u fiirsada oo ogaanaya annahum afdal al-khalq ba'da al-anbiya wal-rusul فكيف وقد جاء في الكتاب والسنة ما يدل على فضلهم ومكانتهم وعلو شأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولهذا ينبغي لطالب العلم إنه يقرأ سيرة القوم
الصحابة رضي الله تعالى عنهم سير كودي إيا فضائشودي إيا قاب كي نولايين وحوي وحسوكو بكرية معه marka masaladii buu tilmaamayo wax kasta oo ku soo arooray marka fadligoodu guud ahaan way fadli badan yihiin haddana iyaga laftooda la sii kala ableeya oo waxa weeye sulhul hudaybiya wixii ka horeeyay waxa weeye fadli gaar ay leeyihiin sulhul hudaybiya dabadeed fadli gaar ay leeyihiin kuwii fatxu makka kadib islaamay waxa weeye iyaga ka sii kala fadli badan ama ashqaas ahaan ama waxa weeye قاب يغو isugu xiran waxay fadilayaan ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية سنة كل حاد بو dhacay oo وقاتل dagaalamay صلح الحديبية kahor على من بك فضلين أنفق من بعد وقاتل آيات بحوى بنص الكتاب لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا لبدي ما كلك الفاضل لم الراعي وكلا وعد الله الحسنى لما انتدوا أهل الجنة ولهذا أي علماء كقاتل الصحابة كلهم في الجنة أما سيجار مدها الله شيغو والله عيما أما الله عيمنا ويفضلون المهاجرين على الأنصار مهاجرين تندوا ضوب أهان أنصارته ويكفضل بدين لأنه لهم سابقة إليه عذبوا في الله في بداية الإسلام ولا عذاب ولا عقاب حوله ذي بيكسوا الضريرين ولا قسوا مسافرين ولا قسوا إري فهم أفضل من الأنصار ويؤمنون وحي رمينيا بأن الله قال لأهل بدر إنه غير بدر كيري على لسان محمد عليه الصلاة والسلام يقول الله ولا بعض دينه وكانوا وحي 314 صدح بقول يا دوري طبعا وحكوا قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم واحد وتر سمايه ودين دم بدافع marka hadii mid kamid ah ahlu badar ahadooda wax yar ka dhaceen waaba waxaad isaga yareen waxa weeyaan wuxuu soo gudagalay in Ilaahay u dambi dhaafay taasina bishaaray u tahay ahlu badrin inaanay marnaba aanay diinta ka noqonayn islaamnimo iyo wanaag ay ku dhimanayaan وبأنه شأن لا يدخل النار نار تجلي ما أحد قف بايعتمي تحت الشجرة قيد كي هوستيسا وصلح الحديبية markii la ishaaciyay waxa weeyaan quraysh ay ku talagashay inaanay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisa u ogolaanin inay maka soo galaan ayaa meesha xudaybiya la yiraahdo maka kaga beega dhinaca galbeed ayay degeen saxaabada nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu deedna wada hadal baa bilaabmay Uthman baa la diray si uu la soo hadlo quraysh war baa soo noqday oranaya Uthman waa la dilay markaas nabigu saxaabada geedku wuxuu ahaa gobna waa la yiri wuxuu ahaa qurac waa la yiri ku doonaba ha noqdo muhiimad male wuxuu ahaa waana laga suuliyay alxamdulillah qaaba ilaahay sokadi caabudi lahaay xilliga Umar ba ayaa gabiisa gunta laga jaray marka halkaas nabigu fariisadeedna wuxuu kula baayactamay cala al-maut kuwa marka halka kula baayactamay alla wuxuu noo tilmaamay inuu ka raali noqday laqad radiyallahu 'anil mu'minina إذ يبايعونك تحت الشجرة وحكى النبي صلى الله عليه وسلم وحديث حفصين لن يدخل النار أحد النار قل ما يقف بايع تحت الشجرة وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وإن منكم إلا واردها علماء قاركود باكو فصلي ورود كدخول النار لكن سي صواب كاي waxa weeye dukhulkaas inuu yahay al-murur ala as-sirat walamma warada ma'a madyana واضح marka naar gali maayo qofkii waxa weeye ka qayb galay baayactamay maalinta xudaybiya kama akhbara bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sidii alla nabiga ka waramay بل اسكدايا لقد نبهان رضي الله عنهم ألا وكرال النغض ورضوا عنه وكرال النغض وكانوا وحي هايين أكثر من 1400 كني أفر بقل
ويشهدون ويمرخات كعيا بالجنة لمن بأمرخات كعيا شهد له ومرخات كعي رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وابطبنكي إيا وثابت بن قيس بن شماس إيا وغيرهم هدين نريد صحابة كلهم وأهل الجنة محاين وقبها هنا نراهنا هبلنا وحويا وأهل الجنة ما فهمت يا جماعة أفهمتم وحين الصحابة كلهم وأهل الجنة محا مركا دنا قار وقبل خاتي كعود مر هدي ودا أهل الجنة يهين محا فايدة كجرته عاون شلون نعم ومدنا إجمالا مدنا تفصيلا عدي إجمالا وحين آمنين الصحابة إن دمانتو أهل الجنيين زيادة على ذلك وحي تفصيل الصوء أرورنا سيجارة أيينو وقمر خاتك عينا سيجارة أيينو وقمر خاتك عينا مركا عشرة حديث واحد النبي وقوة الشيخ عليه الصلاة والسلام وخلفاء الأربعة إيو سعد يا سعد يا سعيد يا عبد الرحمن يا طلحة يا الزبير يا أبو عبيدة وحوي طبعا كاسوي ثابت بن قيس بن شماس اسنا النبي قال مرخاتك عيو مركي سودقتي لا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أيو حويان قرس كحري أو يلي وحويان وحبط عملي وحانها نبي وحي خطيب النبي بها عليه الصلاة والسلام كان يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كي وفود وتماده دنا النبي قام لو شيغay دنا wuxuu tago ugu bishaaray inuu helo janno iyo ahlu naar maahay iyo وغير من الصحابه وان فربدين ويقرون وحيقرون بما شيء تواتر متواتر نقضي به النقل كتواتر نقضي عن امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وغيرهم من ان خير هذه الامه marka halkan waa tafdiilkii khaaska ahaa ee afraad ahaa tafdiilka marka ummadda waxa ugu fadli badan bacda النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر ثم عمر سيد علي وحويا يا غير كيبا كتواتري ويورن جيرين سيد حديث ابن عمر كنا نخير بين الناس فكنا نخير ابا بكر ثم عمر ثم عثمان علي لفتي كان صح ولا ويدي من خير هذه الامه قال ابو بكر قال ثم من قال عمر محمد بن الحنفية ويدينا وحي فسكت وحنكون بقيدان إلى يا كصدحة إنه عثمان شيغان كي يرى بقي بكاسان كولي وأنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين قف مسلمين تكمدا أيان أحي مركا هل كان مسألة لما مسألة يسكد يحجر الشيخ ونوت المامي مسألة التفضيل علي بن أبي طالب يا عثمان بن عفان كيبا فضل بدن مركا يسكو وافقين أبو بكر يا عمر إنه يقول فضل بدنيهين مقالة أهل السنة وأهل السنة يسكو خلافين أي واحد يسكو خلافين صدر الإسلام سلف باللوغية حوية قرون تقرنقي كواد واحد يسكو خلافين يكين لبعض بواح كمدا يا أبو بكر عمر يا كصد حية قالوا waxay ku tageen wareer kuufeen Ali inuu ku sadeexeeyo oo Ali yadeedna Uthman ka dambeeyo qolana waxay yiraahdeen maya Uthman khilaafkaasi markii dambe waa suulay oo culimadu waxay ku ijmaaceen oo qowlkoodu ku istiqraaray tafdiiluhum ama tartiibuhum fil fadli ka tartiibihim fil khilaafah sidii khilaafada u kala qabteen ayay u kala fadli badnaayeen marka waxa weeyaa Uthman baa sadeexa waxana u daliishanayaan waxa weeyaan markii Uthman radiyallahu ta'ala Umar markii la dilay waakii ahlu shura saaray waakii doorta marka dadkii markii la wareystay lam yakhtalifu ala Uthman in Uthman uu mudan yahay هيا الشيخ وحت المامي مسألة كصاب سان علي عثمان كبا فضل بدن ما هم مسألة ضلال كدشو ضلال مسألة كدشو ما دام قول جرو أهل السنة لهاينا ضلال كما دشو لكن حق خلافة إن أبو بكر مدنا ثم عمر ثم عثمان ثم علي
تاسوح ومسألة تضليل باك النشا قفك إلى هذا ما عثمان علي باكهر ري خلافة كاسي وضال مضل مثلا مسألة سوري شارب وكما أجمع الصحابة يسلي الصحابة كل إجماع على تقديم عثمان في البيعة هذا كون شلبين ويرى ذو المرين في البيعة حق بيعة يكون إجماعين مع أن بعض أهل السنة يضل لقب أهل السنة قاركود كانوا وحيها قد اختلفوا قارسوا خلافه في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم مركز وافقين على تقديمهم أبي بكر وعمر يهور مريان أيهما أفضل بيسكو خلافين فقدم قوم الدول باهر مري عثمان وسكتوا وانيا مسلم وربعوا وكوافرين بعلي علي بكوافرين وقدم قوم قلك لنا وهر مريان عليا وقوم الدول كلنا توقفوا وكيستاجين لكن هي شيء استقر وكسغنادي أمر أهل السنة على تقديم عثمان وكسغنادي ثم علي أي كسغنادي وإن كانت هباء هذه المسألة مسألة عثمان وعلي بن تشيداين ليست مدانهين من الأصول التي تصور يضلل لهم ضلال حكمنا أما لغو بعضيين المخالف كي خلاف فيها قديه عند جمهور أهل السنة بدن كودا أكتودا لكن هي الشيء التي يضلل لغو بعضيين فيها قديه ومسألة الخلافة مسألة خلافة دوية وذلك أركاس وحكوا هذا لأنهم أهل السنة يؤمنون وحي الرمينين أن الخليفة خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان للدبدي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن كي طعنية في خلافة أحد قف خلافته ومن هؤلاء كواسي فهو من كاسي أضل وكبادي بدنيه من حمار أهله دميرك قولي ستشوغا إساقا كبادي دميرك وحا الله مثاليا نعس لماذا مخلوق المدح مخلوق كبليتن أو كدقنصن ضمير كما تشيلون لأنه قفك وحوي بليد حمار والله أنكره حمار والله أنكره عبارة الإمام أحمد بهرو استعمالي ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ابن المطهر الحلي نكي اللي صاحب منهاج الكرامة وبحي الشيعي رافضي كتاب كيسنا وكما قعابي منهاج الندامة وكما قعابي شيخ الإسلام ابن تيمية مركو منهاج السنة كره الدينيين هذا الذي سوى حكم لها مركو وحن الشيء خزع بلاد عقل حمد الدليل كوه مركو كدا لشيخ الإسلام ابن تيمية سور الديني أيوحي هذا والعامة معذورون حين قالوا الرافضة حمار اليهود عامضوا من ود مصطلح برقى الاستعمال الشرايو وعذر دار بيلين مركي كما قعابين رافضة يلادين رافضة والضمير كي يهودا والضمير كي اليهود فول الشرين marka qofka sidaa sameeya de wuxuu dalaala ku xukmiyay saxaabadii dooratay Uthman saxaaba dooratay Ali saxaaba dooratay la baayactan marka kuwaas oo dhan ayuu wuxuu ku xukminayaa inay khaldameen de isaga marka waxa way isaga dameera oo waxa fahmaynin oo kalunsan waliba dameerka baliidka ويحبون وحي جعلين أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيب كلا أو صحابة كمدا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيت كرسولك أهل بيت كرسولك نوح لو جيدا قرابدي سي بني هاشم هي بني المطلب إيو زوجات كنبي صلى الله عليه وسلم إي أولادي سي ويتولونهم ولي بيكيالانيان ويحفظون ويحفظين فيهم دحدودا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم دردانك رسولك حيث قال وقت ويلا ما قور ويري يقوب ويري ما غدير خم غدي مالنتي غدير خم لتشوغي غديركو وبلغ وين خمنا وانين مغعيسو لوغو مغع دراي بلغا اما waxa tirada waa geed u dhawaayo loogu magac daray labadaba waa la yiri غدير خم maalintii la joogay waa markii nabigu ka noqday kaleey salaatu wasalaam hajjatul wadaa'i waa meel juxfo u dhow halkaas markuu marayay baa nabigu wuxuu yiri udhakirukum allah wa allah nabi xusuusinaya fi ahli baytkayga sha'nigooda ayaan allah idinku xusuusay bimaana ilaahay kaga baqataan ilaahayna ajir kaga doontaan wanaajintooda waqala aydan nabigu wuxuu ku yiri lil عباس عمه أها وحكيري والحال قد اشتكى عوضي عباس إليه رسولك وصى عوضي عليه الصلاة والسلام أن بعض
quraysh qaarkood yajfuu inay ku adkaadeen bani haashimin reer bani haashim oo de qaraabadii nebiga ah oo cabbaas baa nebiga uu yimid oo wuxuu yidhi quraysh qaar ka midii reerkeennii ama qoyskeennii ama jifadeennii reer bani haashim xoogaa jafaa iyo xaqoodii aanay gudanaynin iyo waxa weeye inay u cadhaysan yihiin ama ay ku kakan yihiin ayuu uga cawday cabbaas faqaala nebigu wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartaye laa yuuminuuna rumayn maayaan xataa yuxibuukum ilaa ay idin jeclaadaan lilaahi alla ay idin jeclaadaan iyo waliqaraabatii qaraabadayda ay idin jeclaadaan iyo waqaala waxaa nebigu yidhi sala allah alay slam ina allaha alla istafaa waa doortay bani ismaaciila ayuu alle doortay wastafaa waa doortay min bani ismaaciilana kinaanata ayuu ka doortay wastafaa min kinaanata qurayshan buu ka doortay wastafaa min qurayshin bani haashima buu ka doortay wastafaanii anigana waa ay doortay min bani haashim marka ahlu beytka nebiga sala allahu calayhi wasalam sida nawaasibta ahlu sunna ma yeelayaane xaqooday ilaalinayaan kuwooda mu'miniinta ah haddii khalad kaga yimaado way u dulqaadanayaan way jeclaanayaan welibay ka yeelanayaan waxay u jeclaanayaanna waa lilaah uma liqaraabatihim rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam bay u jeclaanayaan xadkoodiina dhaafin maayaan oo ka guud ahaan qaraabada nebigu saxaabada kale way ka fadli badan yihiin ha yeeshee aaxaad marka la yimaado ahlu beytka nebigoo dhanoo la isku daray abubakar baa ka fadli badan hada bilijmaac aaxaad marka laga eego marka guud ahaan marka la qaybqaybinayo ee qabaa'isha carbeed loo qaybqaybinayo waxa ugu qoyska ugu fadliga badan waa qoyskii mu'miniinta ee nebigu uu ka dhashay calayhi salaatu wasalaam afraad marka la yimaado dee ahlu beytka waxa ugu fadli badan cali ibn abi aalib dee calina abubakar baa ka fadli badan aaxaad markay timaado ayb marka xaqoodana way siinayaan xaq cid kale lahaayeenna ku duudsin maayaan inay qaraabadii nebiga yihiin daraaddeed calayhi salaatu wasalaam wayatawallawna waxay weli ka yeelanayaan aswaaja nabiyi sala allahu calayh wasalam afooyinkii nebiga iyo xaasaskiisii ummahaatilmu'miniina mu'miniinta ummahaadkoodii ahaa ayay ka yeelanayaan wayuuminuuna waxay rumaynayaan biannahunna iyagu aswaajuhu xaasaskii nebiga inay noqonayaan fi laakhirati aakhira dhexdeeda khusuusan gaar ahaan ayaa khusuusan khadiijata radia allaahu canha khadiija bintu khuwaylid gaar ahaan radia allaahu canha allaha ka raali noqdeen umma akari awlaadihi awlaadiisa badankooda hooyadood ahayd wa awala man aamana bihi ahayd qofkii ugu horreeyey rumeeyey ee min annisaa'i dumarka ama itlaaqanba dheh labadaba waa la yidhi wacaadadahu waxa nacam awala man aamana kii ugu horreeyey aamana bihi rasuulka rumeeyey calayhi salaatu wasalaam wacaadadahu u gargaaray oo garab galay calaa amrihi arrinkiisa wa kaana lahaa waxaa u sugnaaday minhu nebiga xaggiisa almansilatu alcaaliya mansiladii sarraysay khadiija bintu khuwaylid radia allaahu tacaala canha fadli waxaa ugu filan أن الله عز وجل أرسل جبرائيل ليبلغ السلام إلى خديجة النبي صلى الله عليه وسلم وحلت شوقي خديجة أيا خدمة أتصوى قبرس وحسو ودي جبرائيل باوي ماذا وحكوسو قليس خديجة فبلغها من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة لا سخب فيه ولا غصب الله أكبر ربيgeed baa soo salaamaya salaan rabbigeed xageeda ka timid gaarsi ugu rabbi shaare guri jannada ku yaala aad iyo aad u qiimo badan wasidiiqatu waxaad kaloo taada khusuusan khadiija iyo wasidiiqata tii runta badnayd binta sidiiqi kii runta badnaana u dhalay radia allahu canha waa caaisha التي تاسو قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويريم فضل عائشة فضل جيدو على النساء الدمر كي كفضل بدنتاي وكفضل ثريدي ثريد كعنتد اللي يلاهدو خبز كإي مرق إي هلب كالليسكو كريي على سائر الطعام وكفضل بدنيهي مركا زوجات كالنبي صلى الله عليه وسلم ويفر بدنايين عدد كود يمسوها
كوبي طبعا بقى النبي بورسلي عليه الصلاة والسلام سقال بونا الدنيا كجتجي سقال أيو الدنيا كجتجي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ كودنا وحي هايد قيس كيس النبي صلى الله عليه وسلم قرشيات بيهاي مركا حقود الله إلى يا آل بيت كالنبي نوي كم ديهين إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت مركا أهل البيت وحكم ديهاي زوجات كالنبي وحي كم ديهين آل بيت كالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انت مركو هذا ما تقريري وحو قليا مسألة كلا أهيد إنه كدقو أما أهل السنة أي بريكيين لبدا طريقة نواصبتا كو أهل بيت كالنبي النعب هي كو أهل بيت كوتا لحتقي إلا أي صحابة كلا أي وحويا قاليسين والرافضة دي ويتبرؤون أهل السنة بريبي كالنقونيان من طريقة الروافض روافض طريقة والشيعة قلنا ليلة كوة قلادة أهي الذين كواسوا يبغضون الصحابة وحويا عرانيا أو نعب صحابة نعب ويصبونهم أو ولبا عايا ومن طريقة النواصب وكبر النقونيا النواصب تكوى الذين ناصبوا العداء لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كواسوا يؤذون دبيا أهل البيت دبيا بقول وير كل بيا أو عمل كل بيا ويمسكون وحي كقابصنيان أهل السنة عما كي شجرة دحدعي بين صحابة دحدود وحي دحدعي ويقولون وحي أورانيان إن هذه الآثار آثارة المروية للصورة في مساويهم كصابصا حمانه كدعي منها وحا كمدا آثارة للصورة ما با كمدا هو كذب بائع ولبا الرافضة ضبط أكذب الأمم والرافضة دوي marka wax kasto la soo raray saxaabada wixii dhexdhacay waa in la iska hubsadaa sababtoo minha waxa kamida ma huwa kadib waana sida u badan yahay wa minha waxa kamida ma qad ziida fihi ki wax lagu kordhiyay oo wanaqasa la nuqsaamay ama laga nuqsaamiyay ama wanuqisa la nuqsaamiyay oo waqayra la dooriyay aan wajigiisa la dooriyay waa nooc labaad isna ma yara oo sideedaba hada wax ficil dhab ahaayo dhacay dadku halka way ku tanabuhan ficil caadi ahaayo dhacay hadaa soo xikaayoto waxna ku darto wajigii uu lahaan aad badjisho kadaab bad noqonaysa warkana kadib buu noqonaya warkii maxay kadib buu noqonaya waana waxa shayga ugu khatarsan dhacdadii waa dhacdo la sugayo way dhacday oo lama inkirayo laakiin siday u dhacday baa wax laga bedelay ama wax lagu daray ama lagu sameeyay doorin lagu sameeyay marka yaa ka shifin kara cid aqoon weyn u leh ayaa ka shifin karaysa marka taasi waxay ka daran tahay beenta caadiga bay ka daran tahay waayo labsi baa ku jira والصحيح كصحيحة ومنه كمدا وحا الله سؤال رأينا هم يجوا صحابته فيه أركا قديسة معذورون قار لا عذر دار يوي وحي اللي صار هذا صدح بين وقيبني وحبان يا وحبان وحويان لمد أو وتشي جاي لهيد لقى بدلي أنت صاح هذا صحيحة خلطات كدع على صحابة قار كود فهم فيه معذورون دقال الله دي أحمرين عذر دار بكلهم إما مجتهدون مصيبون إما مجتهدون وقار ددالون مصيبون حالي ليس دي صح ضاهي وإما مجتهدون قال ددالون ومخطئون قفي أو خطأ كل عين وهم يقوا مع ذلك أرن كان شركوا أهل السنة لا يعتقدون مع قيدين أن كل واحد متكسر ومن الصحابة كمدين معصوم إنه يهي مثل إلالي عن كبائر الإثم الذنب كيس واوين وصغائره إيا كيس يرير بل اسكدا يتجوز عليهم وحا كبنان دسودا الذنوب تهيا كبنان في الجملة جبود هاني وحي كدعي صحابة دقالدي يدحمر إيا وحيابها الله متكأه أما بمت كمد السيجارة وقد عضي wixii ka dhacay ijtihaad kaga dhacay dagaaladii dhexmaray
mar walba waa macduuruuno laba mid buu dhacaynaya waxaanu sameeyeen haddii uu sax yahayna waa mujtahid dadaalayo asiibay xaqiyo laba ajar buu ku yeelanaya ama wuxuu noqonayaa mujtahid dadaalayo gafayo dambi loo qoro iska daay ajar buu ku yeelanaya sababtoo li'annahu ijtihaadi fi nas alhadith wuxuu maca dalika hadana maca qiidaysna ahlu sunnah saxaabadu inay macsuumiin laakiin fil jumla dunuubtu ka dhici kartaa laakiin dunuubta ka dhacday qaabkee bay noqonaysaa isaga inoo keenaya walahum waxa u sugnaaday min as-sawaabiqi hormar iyo wal fadaa'il fadaa'il ma ba u sugnaaday yujibu waajibsanaya maghfirata ma ki loo dhaafo yasduru minhum iyaga ka soo fulay in sadara wa haduu ka soo fulay mid kamidi hadii uu zina ku dhacay ama been ka dhacday ama wax la mid waxa weeye waa bad xasanaada buu leeyahay badweyn xasanaada dhibic qalada ama dhibic wasakhay badda waxa laala waxay ka qaadaysaa ma jirto marka sawaabiqdi iyo horumarkii ay lahaayeen islaamka u hormareen fadaa'isha ay lahaayeen ayaa keensanaysa in loo dambi dhaafo wixii waxa weeye ka xasilay ama ka dhacay mid iyaga kamida لأن لهم حتى أنهم يغفر لهم والله دافيا من السيئات سيئات حقي ما لا يغفر وحن لو دافين لمن بعدهم ذاتي كدنبي لأنهم عظماء لأن لهم وحوسق ناضي من الحسنات وناقي حقي التي تاسو تمحو السيئات سيئات كبابين سيئ قففك ما أبا أسق ناضي ليس أنسق أوهان لمن بعدهم عدة كدنبي وقد ثبت واسق ناضي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي رسولك أنهم يقوا خير القرون إليهين وأن المد مد يصعب من أحدهم متكوت هذا إذا تصدق هدو صدق يستوب به سقى كان ينوهان أفضل متكفضل بدن من جبل أحد بورت ليلادو ذهبا ومن بعدهم يقعدتك كدنبي أي صدق يستان ثم وحيد كذب إذا كان هديو يقد صدر مد سوفلي من أحدهم متكوت ذنب وكسوفلي أو فيكون وحوهانا قد تاب منه وعصورة قال ذنب قال الشيء اللي صحيبه له صحابه كم إذا ذنب قال كل عاي اللي هذوك ما تاجنين وحصورة قال إنه كتوبت كاني أو أما أتى وليمد بحسنات وناقية تمحوه بابيسا واحد تروح لهذا مكفرات الذنوب مكفرات الذنوب وحكم الأعمال الصالحة وفك حسنات ولي هيبة إلهي وقضى فيا الذنوب تيجي ففك كدعي أو أما غفر له إلا ودن بدافع بفضل سابقته هرمركيسي مرك أنت أسمع الصورة قاليين عندكم محاضر ضبا ودا الدنب قف صحابة كم من الدنب كدعي هدوك ودعيبة محاضر ضبا ودا أنت أسمع الصورة قال إنه كتوبت كان يتانو لمن إنه حسنات فربضنا ولها إلهي وقضى إن إلهي وقضى في فضل جيسي سابقته ولها أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم شفاعات كالنبي محمد الله قضى الذي كاسو هم يجو شفاعة صو هم يجو أحق الناس أيه ضدك قوة وجمدا بشفاعته إرجد النبي صلى الله عليه وسلم أو أما ابتلي إلا بلاء لجو ابتلاء في الدنيا ده كفر به الله ضافي عنه ذنبك حقيسا سن رمض الشاقي مركا قفك هدي ليا صحابة متكم إذا قفك دعي شنت رمض وصورة قلب ولما ذنبنا الله هو إنه كل عي كو إن وحويه وكتابت كاني إنه وناق لا يمد وناق سو كما يريد ذنبك إنه فلو ذنب دافع فضل السابقة ولها إنه شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كم تيستي لو قدام دافع إن الدنيا دبات مصيبة أي كل عضايا مصيبة داس وحويه لو قدام دافع أنت صقن أيك صورة قال هذا فإذا كان هذا الركاس هدوء في الذنوب المحققة ذنوب السجنيد اللي هو بينك العظيم فكيف الأمور ويا الرمسدين نقريا التي أرمها صوب كانوا فيها يا مجتهدين قار مجتهدين إن أصابوا هدي أصيبان فلهم أجران بأسق ناضي وإن أخطأوا هدي قفانا له وحولهم وحوسق ناضي أجر بأسق ناضي والخطأ خطأ دقفكنا مغفور مثل ضافه يوي ثم القدر قدرك الذي كاسون ينكر لإنكر يوم من فعلهم فعل كود حق صلقاء إنكر يا قليل ووحير نزل آدير وشيء آدير وحا للشيء إلى اللي ولب الصغان إلى اللي الصحابي معينة وحاسمين ووحا آدير مغمور مدكو
وحويا قرصوم يوي في جنب فضائل القوم قوم كاو صحابته uga jeedo fadaa'ishooda marka la eego iyo maxaasinhim wanaagooda oo ah min al-iimaan billah rumayta alla rumayeen wa rasuuli rasuulkiisa rumayeen wal jihaadki fi sabiili jidka alla u jihaadeen wal hijrati iyo wal nusrati gargaarki iyo wal ilmi naafi ilmigi wa naafi'ah iyo wal amal saalih amalki wanaagsana waxa soo dhan ayaa waxa yare ka yimid ay ku dhex baaba'ayaan ومن نظر كي يقول هذا في سيرة القوم دول كاس صحابة وجهدا يقف كي ايغا بعلم علمك ايغا وبصيرة وحويان علمي iyo aragti qalbi oo fayow وما ايغا من الله عليهم الا كما نستبه ما او من الفضائل فضليال علم وحوغانيا يقينا سقعا انهم يغو خير الخلق خلق يكون خير كبدين بعد الانبياء النبي دبدود لا كان ما اهان ولا يكون اهان ماي مثلهم يغو كلنا لهلي فرنا وما دحين دبدودنا لهلي مايو عيد لمد اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانهم يغو الصفوه كويل الدورتي من قرون هذه الامه امه قرونتي لكويل لغا دورتي التي امداسو هي خير الامم اممك وخير كبدن وأكرمها وكرامة بدن على الله ألا دشي وحليه صحابته مثابدا سيتاغناينو horta waxay kamid yihiin ummad khayrul umami ummadaha tii ugu khayrka badnayd ummadii lafdeeda waxay sadrigoodiyo waa kuwii ugu khayrka badnaa weey marka saxaabadu makaanadaas ay leeyeen marka intaas ugu muhiimsan masaa'isha saxaabada radiyallahu ta'ala anhum iyadoo kama muwassacana insha Allah ta'ala mutawalaadka ayay noogu iman doontaa halkaas inoo joogay 10keen wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa barak wa an'ama ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in